سمعك هنا شفت باقيس يعني عاد واحد سيا كويس ما أنت حتى واحد كنت لتشنا وحين تاكد إيه مرة ودي موفق إني جولدن وعلينا هاي إلهه بركة بربراء waag saaxiibayaal waxaan joognaa berbera waa runtahay waxay ninka anoo berbera dhex maray waa beenta ninbaa anoo berbera dhex maray waa beenti marka berberaan joognaa oo qurux badnaatay waxaan joognaa berbera oo qurux badnaatay oo caalamka la jaan qaaday oo xabad yar oo xashiish dhexdin maasha Allah ku jirta jawi qurux badnaa kulayl iyo qabowna aan hayn soo ya maasha Allah wadada iyagu xagaa siinayeen xagan leen marka imka waxaan marnaa xagana ka salaam ka kamarada xaga salaam oo nooc kale marka imka waxaan marnaa bartamaha magaalada halkan waxa filayaa qayb bacadlaha magaalada marka xagan bacadli waxa weeyaan markii hore magaalada oo ka bacadlihi wadi ka qaadno wala أنا ما كي حلاية. halka waxa laga iibsan karaa dharka dabaasha hadad badda tagayso xagana waad ka iibsan kartaa runtii ninkaas kaliya ugu wanaagsan nin walba wuxuu soo amaanaya marka wuxuu ninkan ana ugu dhowranays samaha waxaan eegaynaa qiimaha magaalada kala duwan hargeysa shaarka gar isweelka شارك يا جرمان shaarka ayra dabaasha ما يكون دبال ما هلا كمان جرمانتي عادي هاي isweelka ayra سمعك هنا شفت باقيس يعني عاد واحد سيا كويس $1 هذا واحد كذا marka waxa looga dhaqaaqay waxba laga diini dekadii waxa in mujirtayna $5 hay dekadii waxa ku jirtaa maciishadii ganacsatadii uma ogolayna dalkeeda halkan wax ku dejiso nin walba marka soo dugo container-adiisa uu qaadaya uu jaaray iyo wadanka fog buu geenaya dib loo socodiyaa oo dib loo soo gaariba dib lagu soo qaaday iyadoo rakaabsana kadibna hargeysa adigu nagu dhowba xagga marka la eego alaabku degista laakiin hargeysa wad ka dhar buuxintii waxa weeye may waa yaraanta yani hargeysa waxa indha daraandarka ku yara bedelay yani meel badhiska waxa yaala dhar nooc kala Cabdiraxmaan aad buu ku saaray hayo ana khadar bal hayo kan Axmed bal marka wayna soconaa insha Allah berbera shaaha la cabo marka la quraado shaaha la cabo doonaa وكا بعضله اللي ما بيرى إلا هالكا بعضها وساني شيء شهر لعبة وبيها قبوقة ما قلتي إحنا نلعب وحكي عن كلالك يسكت المشاوق وحوي شام ما حسن ملح يقول لي حراتكم كبايا ملح يربى القدرة أما بيها أنا هذا وقدر يا وفي عين بس أسكت في عين يرى القدرة بس ما شاء الله magaalada baaskiilka duwaa magaaladan hadad baaskiilka taqaano waa iibsanaysaa xabada weyn bad iibsanaysaa ya wallahi waa gaari weyn baa hadda taybsato qiimadeeda ma ii sheegi kartaa saaxib labadaba taasi waa 150 marka hadad berbered timaado oo aad waasiila ka xanta qaro YouTube aan duubay yaro ma xagan ma soo jeediyaaba xagan ma soo jeedin berbera maadaama wadooyinkeeda aad u fiican yihiin deeimka waxa wanaagsan baaskiisha aad loo kaxaysto imika tan inaan ku wuxuu sheegay waxa ku sheegay 150 kolka day iibsanaysan waxa laga diin karaa waxba laga diin karaa marka taasina 550 baad marka berbera maadaama wadooyinkeeda aad u wanaagsan yihiin وين باسكيل كلك حستا hawlihii kalena way ka caawinayaan tuban noqonaysa طب hawlihii kale jimicsiga wuxuu taasoo ciyaalka ka kac abiyis yaa lagu qaadin tanaad fuuli doontaa insha Allah mar aan horta kolkan fadhiisano aynu ka xayn doona way ku haynaysaa laakiin tana taasa ku wanaagsan ama tan hay
واتي ده إلكتريك هاي سما تاني هرجيسي كوين سبب إن باورتا واحد مرة نعمل كنا سيرو يرو مجال السيرو يدا وقع عن سنة إن واحد روح بدنا أركض وطن بكو يلا فوق أنا كوجين وصبنا ولا قدسي سماها فوق المينا وجين هل كان حالي حبلا waxaan ugu yiraahdaa madad halkan kale maran ma waxaan ugu yiraahdaa reer Ibrahim maxaa la lugeynaysa wani magaalada kala garanaysa taaladu waa tan taalada loofka la yiraahdo Allah ba xaga sare kaga qoran marka macnaheedu wuxuu noqonayaa Ilaahay waan jecelnaa kale Allah ba ku qoran iyo loof maxay macnaheedu akhrisade loof marka la saaray Allah baa filay marka loof ma filay marka ciilay baa laga saaray waa siirooyada meesha ugu qurux badan fooqa cusub ee sheegay waa kan siiro fooqa cusub ee joog ma fooqa ma kareynaysan anaga kareeyo maaha river baro waxaan ku jeclaa wuxuu eegay fooqii hargeysa 5 star ka ma dabaqi weyn ah dheerka magaciisa maxaa safran hayu ka gaabin laakiin shaqadiisii ayaa loo kiisay laga yaabaa in sidiisii loo dhisay fooqa waad arki doontaan waa kaa waa dabaq ilaa 4 dabaq meelahaas waxaan falay inuu aad u qurux badnaan doono berberi nadiif weyn xabad qashin ma xayal magaalada halka imka kuna waxa weeyaan dad wada shaqaysanaya dhalinyarada marka laga yimaado dadka kale kaabada yar waxaan filayaa in loogu talagalay marka ninkana reer berberi wajinay halkan maxaa loogu talagalay soo dhaw saaxiib magacay waa Khadir Yusuf kuma qadar Tokyo ma garaato Tokyo halka waxa loogu talagalay nasiimada lamaana dhalinyarada uqaasha odayaasha halkan saaxiib waa sultaakada waa ka dhaqamada ma garanaysa halkan sideeda waxa fadhi dad muwaadila ma garanaysa reer Soomaaliland ayaa qaadada ka furta kayagu markuu bixsamo halkan oo kala la iskaga nasiimanaya magacaaga maxaa la Tokyo Tokyo saaxiib Tokyo ma taqaana saaxiib waxa weeyaan garanaya waxa weeyaan waa horta waa China magarasa ay ku taala ya ay sax Tokyo waa magaalo marka waa meel yaro hara oo qurux badan oo dabiici ah oo laga sameeyay dhagax iyo loox kulay dadku in harsaamo lagu talagalay marka khadar oo marwa qoriga toos u qaad dadkii ku dhicin واي واي هي بربر واحد طارين سو دوينيا كاميرada aad kugu xanaaqaya isfiila tama qabaan halkay Axmed oo bari baa sawir barigi cusbay marka waliba muddo dheer bay dhistaan muddo dheer bay dhistaan xaga sarana wallah واو أو قبطة إن وهاجك صاحب الولي واحد يكون جودة لنا برامج كيني واحد مرنا بربرة ميل قديمية لكن لقى لسه مكان اسمه يال هذا بروح بدن سيدا كانوا كله ونكون دوان دونا لكن حاجة نفسي هذا ودوين بروح بدن يو معناها ودوين نظيفة أو حبة قشين بحل halka wax ka muuqdo guriga in badan jira halka luuqada arkaysan qadiimiga ka imka kamarada ka dambeeyo kale isaguna waa guri aad u qadiimi ah laakiin imka kan baynu daleenahay gurigan waxa la sheegay in dawladda hoose ee Berberi ay imka dhisatay oo farta laga qaaday waana guri laba dabaq oo saaran iyo hoose aad u qurux badan oo casri ah dawladda hoose dhismo yar oo qadiimi ah gaari doona halkaas ku jirtay laakiin imka waxa ay dhisatay kan baa lagu yiri marka ma sha Allah ma leenahay halka wuxuu leeyahay laba albaab berberi way tagtay marka ma way iska harsanaya ma filan laba albaab buu leeyahay waxa la raaciyay dhir magaalada kale ku sahay ay xeeb tahay waxyaalaha qaboojiya waxa kamid ah dhirta waarka sansada dhirta loogu beeray inaa waxa kaga dhisan masaajid isaguna aad u qurux badan marka uu dalaalaya waliba midab aad u qurux badan midabada noocaas ma midab kolkoon
caddaan ahayn cadceed isku xajinaya xilli kasta uu dhalaali karaa mar dahabka diidaysaaba ka dhalaalaya yaa malaha dhagaxaantii dahabka lagu dhisay yaa halkaa ibraahimka markaa dhismihii waa kaa masaajidkina dowladda hoose cusbeyd u taa masaajidkina waa kan dee waxaan leenahay berbera waa run waxa cusayb iyo qadiimigii waa runtaa xaggan waa runtaa berberi si ay taariikhda u muujiso kani waa qadiimi waa 1900 uu aadi ilaa Cusmaaniyiintii 1800 wixii ka horreeyay maadaama magaaladu intaaba ka horreysay xaggana waa dhismihii 2026 iyo 1900 marka weli weyn yar soconana xagga lafteeda waxa ka socota iyadana beer dalxiis oo beerta nasashada oo taa lagu qoray iyadana imka ayuu ka socdaa dhisme maanta mar yara galno dhisma ka socda wax lagu tala galay inuu nagu yiraahdo dumarkii ciyaar dawladdii hoose horena dhismaha yar ee qadiimiga ah ayay ku jirtay waa ingiriiski baa laga yaabaa magaaladu wax xilliyada aad u dhisantay waxa kamid ahaa xilliyadii ingiriiska waxa laga yaabaa inay isku xigaan qaar ingiriis iyo qaar masaaskina waa kan qurux geesiyadii wax kasta u leeyahay sida dusha ka muuqata magaaladu halkaas iyaduna wax alle waxaas waa qadiimi saadiisi muuqata waa dhulka ay ku yaalaan inta badan kalluunka laga iibsado ee lagu rogo bakhaarada kalluunka halkaas waa beerta nasashada ee badda caanaha geela maxaa ku qoran ma badda cagaha geliba badda cagaha geli weeyaan badda caanaha geela moodebe gurigan waa qadiimi waa dawladda hoose arag oo maadan ku jirinba soo soco marka berberi qadiimiga ahayd ay tukaha caan ku ahayd ilaa saqdi dhaxaalay toole ay tuku cii halo hurda yan baqay marka berbera waa qadiimi weliba dib baa looga habeeyey magaalada waxa fiican in sideeda lagu yar habeeyo oo aan macnaha guryaha dib loo rijeeyo aan la dumin oo badan la dumin saas kala eegsan oo laga dhigo waa la yar habeeyso hadda waa dhagaxiisi baa lagu yar habeeyey hadii kale taariikhda lama sabab hadii kale taariikhda lama sax ayana waa iskitara halkaasina waxa ku taala warshada barafka dad kalluun iibsanaysa barafka halkaas ka soo iibsanaysa weyn oo qalalan barafka halkaas ka soo iibsanaysa xagii dawladda hoose iskela suuqa nimka dhex marana waa suuqa kalluunka lagu iibiyo qeyrin oo kalluunkii baa xilliga casarkii badda laga keenaa oo lagu rogaa saarkasan magaalooyinka la kala qaadqaadaya halkaas saarkasan kalluunka ayaa lagu urusan yahay oo la qaybsanaya oo la iibsanaya marka halkani waa fish market baa la yidhaahdaa waana magaalada meelaha ugu qadiimsan oo weliba dhismayaasheedu yihiin dhismayaashii dhexe ilaa 1900 ilaa iyo intaan soconno waxa weeyaan waa kalluunka qeyrin waa suuqii kalluunka marka ninkii Axmed oo ila socdo halkan hor socda wuxuu yiri kalluun yar oo bisil oo jaban ba meelaha lagu hayaa horta meel uu la soo waayay laakiin meel kale kala loo tilmaamo aan kalluun yar oo jaban ka socon marka insha Allah waan raadinna waa halkan ma filaya meelahan ma lagu hayaa kalluun meelahan dhan waa qadiimi sida ka muuqata waxaan nahay ragga berbera jooga ilaa xilligaa aan kalluun cunin kalluun baan doonano daydayna saad ogeydeen marka kalluunkii waanu yara weyno midna wuu fogaaday annagoo aan gaajooni alaabtan baan dalbanay alaabta ma taqaanaa
وملعب عدل ليه باست ما عناي باست لكن يبريس تدخل حالي ما عناي waxaan cunay shalay galabtii oo xalay baan cunay oo saakaan cuni gaadhnay markaa waan ka boodsiiyey waxaan cunay harakooga basal iyo qajiya leendana roodi moofadii cilmi gooldari hawa moofadii cilmi gooldari baa lagu sameeyey markaa wayna kaa waa ka shaahay bareedkaana berbera calooshu wanaagsan harakoog moogta maa bisi kama qabanna cajiibkan yareega laba cajiib baa la kasoo saaran labadii wado intaas u jira haadka iyo haadkan talaabay isu jiraan geedkani waa geedka dhamasta la yiraahdo qori gaga la mudo laakiin wala beer u baxaya waa ka imka ka hor inta say oo fiilaya halka gud baa laga qoday isagana marka kaniimka uu fiilay geedka uu fiilay kasoo fiilay waa ka imka soo fiilay darkasa halka waxa saaran shimbirayuna وحور تكابن مودنا ما فرت كعلاب أيك هو حارني الله يوخى يقول حارة بعد تكا يقول حارة إحسن مرت يقول حارتي أنا مثل أيك وكا يقول حارة مرت سوكا يقول حارة لعبة دريس العقل لعبة هذي لعبة دريس وكا واحد وارجيت بكرة ما يولي بلا حار سوكا ها جيت كان كحقه لعبة دريس العقل دريس ويقول حار جيت كان كحقه لعبة دريس العقل العقل ولا هلا waxay saaxiibayaal waxyaalaha magaalada mashquulka si dhigaysa waxa kamid ah ciyaarihii gobolada ayaa ka socda markaa halkan ku joognaa waa garoonka ciyaaraha ee Cabdalla Stadium garoonkii waa kan halkan oo kale waa Siro garoonka waxa meesha in kubad lagu ciyaarayo waxa lagu garanayaa kubadaas ku sawiran garoonkiina waa kan halka ciyaartii imika waxa ka horbay dhamaatay waxaan filayaa way dhamaatay ciyaartii waan filayaa imika laga dareeray maadaama aanu ku habsaanay wixii muuqaaladii hore aan duuduubin marka insha Allah tabiri baan daawan doonaa waa kan calaamadaas oo dhan waa calaamadii gobolada kooxaha ka qayb galaya kii Somaliland waa iyo calaamadii kale gobolada iyo kooxaha marka waa kan Cabdalla Stadium wuxuu ku yaala xagga bariga magaalada yaadaro ma la ciyaaro imika waxaan joognaa mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee magaalada Berbera magaalada Berberi inay bad leedahay waliba bad ka mid ah badaha ugu caansan ee wax lagu gartaa halkan waxa saaran astaantii badda waa doon ba saaran waa mid ka mid ah siirooyada ugu quruxda badan ee ugu caansan magaalada wadadaasi badday tagaysaa oo aan ahayn badda lagu dabaasho laakiin tii bad talaale halkan ay maraysaa waa meel aad iyo aad u qurux badan wadooyinkeedu nadiif yihiin marka Berberi waxa hubaala inay tahay magaalada ugu qurux badan magaalooyinka Soomaalida uguna nadiifsan the clean city in aan aaminsanayno marka doontiirna waa tan waxaan filayaa waa astaan asala waa Berbera iyo maalin wanaagsan oo Ilaahay wadooyin ku barakeeyay inta maraan nidhi baawurta agaan naga maraan intana taasad ku filan waxa joognaa ma goolad mise Siro gooladu yeeno halis weeyaan in gaariga ku jiraan in kale marka waxaan joognaa astaan kamid ah astaamaha magaalada Berbera ugu caansan oo macnayaab la sameynaysa Axmed baan weydiinayaa bal barigu ciyaal badda ahaan jiray horta waxa weeyaan mid koobaad magaalada Berbera joognaa haye waa talabaad waxa weeyaan magaalada Berberi waa magaalo nadiif ah oo nadaafadeedu aad u sareysa waa saddexaad wadooyin badan leh wada afraad taalooyin badan leh marka taaladani waa mid ka mid ah taalooyinka magaalada Berbera astaanta oo ah ka turjumaya in kalluumaysiga iyo maxaa la yiraahdaa markabka xagga hoteeladii bay tagaysaa iyo dekedii marka maadaama ay deked tahay
taalo waxa la sameeyey doon laasha laash laash yar ha wallaash doontii laash way marka haddaad laash ka aragto marka axmed waqti taaladani dad kulkay berbera ku lumaan waa meelaha soo hagta iyagoo lumay taaladan gartaan soo dib u noqda marka xidhaanta xagga badda xitaa taalada xagga badda xitaa inay badda u dhawday garanaya marka bal taaladan bartay ku taalo magaalada ma bari bay kaga taalaa bal soo sheega jihooyinka dad berbera kala garanaysa maalin wanaagsan badan leeyahay waan sii soconaa dee berberaan soo dhaxmeersanaa meel kasta oo taariikha iyo qurux badan oo soo duwan sidoo kale dadka kalluun baa ku soo dhacay maanta kalluun weli ma nacun taariikh baan dhignaa wendii baan joognay kalluun laba cisaan joogno weli kalluun ma nacun ama ka diina mana way nagu qosli asma cadeynaysa waxa cadeynaysa inaynu nahay waxaan la garanaynin وهاجا waxaan joognaa imikana mid kamid ah astaamaha magaalada ugu caansan welibana Soomaalida oo dhan caanka ah dunidaba waa ninka kaliya Soomaaliga ee jacaylka u dhintay kulli qaar badan oo badan way dhinteen oo la ogeyn wax laga qorin laakiin tani waa astaanta cilmi booldari oo hayso badan oo Soomaaliyeed ay marayeen ninka jacayl u dhintay isku raacay moofu magaalada ku lahaa taariikh aad u fog marka moofidiisiba halkan la keenay astaan ahaan ayaa halkan la keenay iyadoo dhoobo laga dhisay laakiin astaantii waxa qariyay ubaxii jacaylka ayaa ka dul baxay marka ubaxa jacaylka in laga yar gura wanaagsan lahayd oo kan lagu deyn lahaa ka laga guri lahaa marka waa siiro kamid ah siirooyada magaalada ugu caansan qof kasta oo magaalada yimaadana uu moofada cilmi booldari uu sawir ku galo moofada waxay jirtay magaalada dhexdeeda laakiin halkan ayaa la keenay taariikhan loo keenay in la ilaaliyo maadaama meeshii aad u gabuuday oo magaalada dhexdeeda ahayd oo guriga dundumay bay ku dhex taalay moofadii cilmi booldari ruubida ku yimid jiray marka halkaan insha Allah waa laga yaabaa inay booqanood muuqaalkiina ku dhex aragtaan laakiin berbero waxaan joognaa iyaduna caalamka la jaan qaaday magaaladu astaamo aad u badan iyo goobo caan ay leedahay goobo badan waan booqanay goobo badan oo maarsiin marka weli waan soconaaye soo socda saaxiibay intaa wixii ka dambeeya waa inaan badda tagnaa berberaan mid baddana maan tegin kulli laynaga aqbali maayo marka wadadii quruxda badnayd ee Batalaale ayay imika sii haynaa wadooyinkan aadka uga helay sida uu dhisan tahay waxay leedahay sidewalk halkii la lugeynayay waa laba hado aad u waaweyn dhirta waxa la raaciyay ilaa iyo badda iyo ilaa iyo taaladii ka soo dhaqaaqnay ayaa dhirta la raaciyay meel dad ku nastaan ba loo sameeyay halka aynu soo dhaafno kale waxa loogu talagalay dadku markay soo daalaan inay ku nastaan marka Batalaale ayaan idinka hayaa iyadana sheekooyin aynu ka soo gudbinaynaa aad u xiiso badan oo imika ku sii jeednaa Batalaale way hormartay sidii hore ma ilaa timir baa lagu beeray oo halka inaga horeysa halka wadaas iyadu waxay tagaysaa Hotel Mansour oo mid kamid ah hoteelada waaweyn ee Somaliland oo halkan branch weyn ku leh xeebta Batalaale agteeda marka imika badii aynu ku dhownahay bari bay baddu wadada inay rafahaydo badda in badan loo sii socon jiray laakiin imika mirar yar oo gaaban ayaa loo sii socdaa badda maadaama wadda aad u qurux badan loo sameeyay marka berberiyo hormartayna Maria imika saaxiibeel waxaan joognaa badii berbera bad kamid ah badaha dunida ugu caansan waa badii loogu hadalhayn badnaa sanadihii ugu dambeeyay waa badii berbera Batalaale beach baan joognaa waxaan leenahay ilaahow barakee berbera oo badeeda barakee oo badda cas barakee oo way barakeysan tahay barakee ilaahay oo ka ilaali baan leenahay fidbada iyo dhibaatooyinka ilaahow badda cas noo barakee oo way barakeysan tahay noo barakee ya marka halkan oo kale imka baddu waa ay ka guurtay oo xilligan waa xilligii qaboobaha badii hore ayay u siqday halka ay tagtay gebiga ayaa lagu dabaashaa halkay baddu caadiga tahay laakiin imka meel fog baa lagu dabaalanaya xilligan oo kalena baddu waa khataro dadka way soo daba martaaba ya marka haddaan dabaasha aqoon waa khatarteeda leedahay waana maalin fasaxo hadhow way soo buuxsanaysaa Welcome to Berbera Batalaale Beach xilligii badda raacna xilligii badda casan badda gacanka cadmeed ما شاء الله القهوة حمرية القهوة حمرية مركبة مرية القهوة اللي بتهاجن ودكتة قلية مركبة ما شاء الله بدي بيريته يا هنو بركة بدأ
بدأ xilligeeda raacaya badda xilligan dadka aad uma dabaashaan laakiin way isku sawirayaan dhalinyaradu way dabaalanaya halkan nin baa ceel ka qotay ceel sida arkaysan halkan baddi way ka tagtay oo biyo yar baa ku jira dhagax baa ku soo haray sallaxa oo seef oo khatar marka kolkay badda soo buuxsato aaggan oo dhan uu buuxsamaa dhagaxaantan wuxuu ka mid yahay dhagaxaanta harista ah ee dadka cagaha ka sarsara maxay badda kolkay soo badatay ay ilaa xaggaa hore gaadho dee ma arkaysi waa ku saraysaa marka imika dhulka ay habluhu isku sawirayaan kale waa inta fiican ee bannaan laakiin xaggani waa mamnuuc lagama geli karo ilaa bareeg xaggan siday tahay marka waxaan leeyahay haddaadan badda gelinin kolka dusha marayso meelaha aan laga gelin iska ilaali kolka badda timaado ya ninkii axmed dahab buu baarayaa ninkii axmed wuxuu yidhi dahab baa laga helaa badda xilligeeda ama dahab baad haysaa dahab buu baarayaa waa kan maxaad baaraysaa hadda dahab baad baaraysaa saxan buu leeyahay saxan hadduu saxan ilaa dahab buu heli lahaa maanta marka inta barayda soo qaata halkan iska imaama laga yaabaa inaad ka hesho badheeman badda xilligeedan bahal ku arkay soco bahalkaas oo sheega bahalkaasoo badda xilligeeda yaallay waxaan joognaa saad la socotaan xilligii badda batalaale marka waxaa loo jooga reer berberi caadiga ahayd marka waxaan leeyahay reer berberow caalamkii idinku mid hadal hayaa maxaa leedihiin caalamku waxaa leeyahay dalxiiska cid walba ma cadaanka imika waa baabadu way furan yihiin meel walba waan u furaynaa maca airportkii ma fahanteen marka waxaa leenahay soo yaacatee badda halkan waa lagu dabaalan jiray biyo xayn qabteen biyihii maanta way caariday baddu caariday casarka way soo noqotay hadhow casarka way soo noqonaysaa hadhow dadkan dabaalanaya way soo daba maraysaa baddu halkan way buuxsamaysaa halkan bay imanaya maanta xataa waxaan ku tala jirnaa wixii intaa ka dambeeya marka dee sheekadu imika noo sii dheeraato dadweynuhu nala soo xidhiidho dhammaantood guryaha macbadaha intaan badda intaan dul imanaa baanu guryo caadiya ka dulisaynaa guryihii looxa iyo maldeefis ka dhisnaa soo ma garanaysa ayaanu sidoodii oo kale uga dhisaynaa kuwa magaalada qadiimidaana waa rujiyeynaynaa waanu habaynaynaa si loogu dalxiismayo markaa waxaanu leenahay ninkii tiktoker iyo kii facebooker iyo kii snapper iyo kii youtuberaba intaba waxaanu leenahay berber waa meel dalxiis loo dalxiismayo afrika waa dhaafteena dunida maad waalanta imika ictiraaf baan helnay wallaahi ilaahay mooye bilaadan aan u baahanay ma jirto soomaad garan macallimka maldeefis tan iyo waxaad ka sheegayntan sirosa ugu xidhin badan gebigeedaba ayaanu guryihii ka dulisaynaa guryihii maldeefis oo kale waa naloo soo dalxiismanaya insha allah macariya hargeysa reer burco kasii daymayna dee iyaga laftirkooga waa ku jiraan qolada kiraysanaysa badaha kiraysanaysa guryaha ka karaynayna markaa ma kale yaxaysanna anagu dad iyaga dee laakiin adduun weynaha waxaanu leenahay hama ogaaninay soo yaaca war hooy somaliland waa isbedelaysaa imika maraakiib baa nacag maraysa dekeday ku socdaan saddex markab baa halkaa taagan dekedii waa kuyuu mashquul weeye marba marka dambeysa mashquul adduunka waxaa sanadka dhowr bilood ka hor waxaa kusoo xidhmay dekeda markabkii adduunka ugu weynaayo labaad ayaa kusoo xidhmay kii labaad adduunka ugu weynaa ayaa kusoo xidhmay insha allah waxaanu sugaynaa ka koobaadna waanu sugaynaa inuu noo yimaado duniday la tartamaysaa maye berberi somaliland iyo berbere gebi ahaanteedba adduun weynahaanu tusaynaa waxaanu nahay iyo adduun weynaha inaanu ka qayb qaadan karno dee wax tusi karna adduunka magacaaga muxuu ahaa aniga cabdiqaadir ayaa naqada balay